بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada som IT zone niyo cashirkii haddaan baatay mar walba inaan soo jeedino shabakada waxaad la xiriiri kartaa ama la socon kartaa casharada cusub iyo wixii kusoo kordha website-ka meesha ku qoran Facebook-ga iyo YouTube channel-ka marka waxaad ku codsanayna inaad like iyo share iyo subscribe inta badan noo sameysaan si aad nagu caawisaan inaad sii wadno hawsha iminka wadno toddobaca ayaa inoo socda marka okay waxaan OSI model. Okay, why do we need OSI model? OSI model sababta u baahannahay maxay tahay waxa waaye OSI model waxa u baahannahay to address the problem of network increasing the size and the number of the international organization for standardization waa ina yani to address aan habeeno the problem of networks networkada increase ina habeeno increase ina ziyaadino size-ka iyo number-ka aan ugu talagalnay yani in loo isticmaalo waa yani ISO waa shirkad yani markaasi organization-ka u xil saaran in wixii ka soo saarto qaab maamuus research lagu sameeyo qaab oo yani qofku baxsi gareeyo man network schemes yani habka kala duwan shabakooyinka recognized la aqoonsan yahay that was a need to create a network model si yani network model aad sameyso ama shabakad aad sasto waxaa u baahan tahay in habka shirkadda ay dejisay ama organization-kan ay dejisay in loo isticmaalo. This would help network builders implement networks that would communicate and work together. Yani waxa waaye waxay ka caawinaysaa kala networkada kuwa dhisa injineerada implementing ku sameeyaan network inay markaasi qof walba awood u yeesho inuu communicate ku sameeyo shaqada kala duwan. Marka ISO therefore released waxay soo deysay OSI references model-ka waxaa soo saaray 1984. Okay, marka waxaa jirta khalaad badan waxaa la isku khaldo ereyada marka soo gaabiyo ISO yani waxaa la soo gaabiyaa International Organization for Standardization. Waxaa kaloo jirta OSI yani OSI waxa way Open System Interconnection way marka dad badan waxaa jira International Standardization yani Standard Organization jirta waa kan koowaad ISO marka OSI ne soo soo gaabiya waxaa jirta IOS Internet Network Operation System idan noocaas baa loo soo gaabiyo marka waxaa gudbaynaa the OSI the OSI reference model-ka gudbaynaa marka waxa waaye todoba qayb ay ka kooban yahay markaas laga soo bilaabo waa physical layer markaas aan soo bilaabno physical layer waxaa kusoo xigo data link layer network layer iyo transport layer session layer presentation layer iyo application layer marka todobaas ayuu ka kooban yahay markii OSI layer laga hadlayo oo todoba asaasi u ah in communication oo dhaco marka todoba ay ka tirsan tahay marka network engineer aad tahay ama qof IT dhigtay ama qof computer science ama telecommunication bartay waxa waajibka marka todoba ka tirsan yahay qaab u shaqeysan oo yaqaan iminkan waa sharxayna. Okay, the OSI model will be used throughout your entire networking career yani waxa waaye shabakooyin qaab isu galayaan iyo qaab u kala baxayaan communication u dhacayo ayaa lagu maamulaa marka memorize yani waa si adag u xifdi maskaxdan ku hay. Okay, OSI model marka waxaa loo qaybiyaa todoba markuu yahay 3 iyo 4 ay kala qaybsamaan 3 iyo 4 ay kala qaybsamaan marka waxa waaye saddexda ugu horeyso waxa waaye application upper layers baa loo yaqaanaa upper toosna waxaa loo yaqaanaa data flow layers and application presentation decision waxa waaye application upper layers waaye kuwan kalena data flow application waxana qaabku yani applicationada oo isticmaalaan communication ku dhacay ama data flow waxa uu isticmaalaya daatada naftarkeeda qaabka ay communication ku dhacayso yani computer la computer qaabka daatada ay u soconayso way marka layer 7ka application layer-ka waxa soo qaadanaynaa application layer muxuu yahay this layer deal with network applications yani wuxuu ka falgeliyaa application ku shaqeeya network-ka sida example marka yar email-ka yani ku shaqeeya waa application layer way web browser kasta yani Firefox Mozilla iyo kuwa iyo Internet Explorer opera iyo kulli waxa waaye application layer waxa kale ku mid ah BDU user data yani iyagana sidoo kale oo yani each layers have protocol that you yani si gaar ah loo isticmaalayo marka waxa kale jirto presentation layer this layer is responsibility for presenting the data in the required format which may include yani waxa waaye mas'uuliyad ka tahay in soo bandhigto daatada loo baahan yahay formatkeeda kaas yani oo ku mid yahay code formatting encryption iyo comparison
يعني kuwaas oo yani isdigaarina daatadii markaasi haweenayso. waxaa kaloo galeynaa qaybta saddexaad session layer oo ah yani maxaa la yidhahdaa qaybta saddexaad oo application layerkeeda isku dhaho. this layer establish waxay publish garanaysaa manage hagaajinaysaa and terminate ay kala gudbinaysaa sessionka oo dhaxeeya laba communication hosts wala computer oo dhacaya qaabka oo fadhi u dhacay inta oo communication oo dhacay computer wax u dirayo intuu dhaxeeyo qaabka u dhacay ayuu maamulkiisa shaqo ku leeyahay. grid wuxuu haweenaya wuxuu abuuraysaa virtual circuit sidoo kale coordinate waxay haweenaysaa communication between systems. organize waxay haweenaysaa their communication by offering 3 different models noocyada kala ah simplex iyo half duplex iyo full duplex in waxay qaadan doonaa marka يعني example يعني waxa way current software used for logging يعني current software bas qaale inuu kala system markay weyn tahay software waxa jira login si safar qof uu gaaro. okay half duplex waxa laga wadaa marka warkaan inta buuxa ku soo koobo waxa laga wadaa يعني fiilo ama system يعني laba computer oo xirma in isla xiriiraan marka computerka wuxuu tiriyaa macluumaad computerka qabsanaya markuu qabsado dad wuxuu soo diraa jawaab kan uu sugaa jawaab soo gaarayso uu helaa marka inaad diray nin kale uu sugaa nin kale uu sugaa kii kale diray wasaas يعني waxa waaye يعني ايش محل او راديوغا ام تي في او كله تي في يعني معلومات soo diray starlet kii maanayo tv soo bandhigayo waa half duplex يعني full ma يعني ما اود ما tv qabsato ma tv ka hadasho ma awoodid si يعني maxalla warka starlet u gaaro ma awoodid marka half duplex example. okay full duplex waxa waa isna two communication ay waa inta sida يعني sheeg telefoonka kale telefoonka qofku waa wixisa adoo hadlaayo isuu ku jawaabay fiicanta ha nabad ma qeyrha yani halkii mar waxa uu diin isla hadishin marka waa full duplex noocaas example banti يعني waa sawirkiisa ka muuqdo waa switch iyo serverkii dhaxda qayb full duplex protocolki ah oo 10 ilaa 100 megabit per second ku shaqeynaya. okay waxa usoo laaban transportation transport this layer breaks up data from the sending host and then assemble it to the receiver. wuxuu diraya macluumaadka yani data diray soo send iyo assemble soo suganaya marka it also used to isticmaal to ensure inuu hagaajiyo reliable data transport across the network. macluumaadka oo daatada gudbiyay network dib u hagaajinaya can be reliable or unreliable oo halka man halka sequencing isku xigto imanaya acknowledgement waa jira oo in macluumaadka soo gaar xaqiijinaya iyo transmit dib loo hagaajiyo macluumaadka file ku dhaco iyo flow controller yani dib yani macluumaadka yani la socda hal meesha uu gaaray. okay qaybta network layer waxa sometimes referred waxa yani waxa as to Cisco layer badan in la dhaxmo loo qeexaa laakiin waa mid caam ah yani end to end delivery macluumaadka dhamaad yani gudbinaya provide logical address that routers use for pass determine يعني oo logic ahaan yani address aan u sameeyay macluumaadka routerka ama loo gudbinayo. segments are encapsulated يعني waxay markii macluumaadka la kala gooyo oo la jabsho tijabka macluumaadka iyo encapsulation oo qolfof ay u sameeyaan si oo hal dhac u maraan. network communication ay sameeyaan packet forwarding oo sameeyaan macluumaadka lagu gudbiyo packet filter oo sameeyaan. okay back paste pass terminating fragmentation ay sameeyaan fragmentation waxa oo يعني macluumaadka oo yani inuu kala gooyo isku keenayo way marka idin la isticmaalayo ib oo ib ga taqaan iyo ibx oo ah aan papier badan. okay waxay yarto data link ay imaanay performance physical layer يعني waa physical ahaan yani waxa uu hagaajinaya. this layer provide reliable transit for data across a physical link waana waa physical ahaan yani wixii qaab communication u dhacay yani way oo hagaajinaya combines bits into the bytes and the bits into the frames يعني waxa way qaybtan waxa la yiraahdaa oo ku shaqeeya qaybta nick kaarka yani macluumaadka ayuu kala gudbinaya mar wuxuu bedelayaa koronto marna wuxuu bedelayaa يعني digital numberka oo 01 ka. okay access to media using MAC address يعني meesha macluumaadka loo wado wuxuu xifdinayaa MAC addresska oo yani lambar aan soo laawanin error detection macluumaadka khalaadka soo qabanaya network correction laakiin masaxayo LLC and MAC oo haweenaya oo macluumaadkii raqam oo MAC addresska ama uu qabanaya LLC-ga sida oo yani oo umalaysta IP56 loo malayo. logical link jiro yani control performance link established ku hagaajinaya MAC perform access method dib soo hagaajinaya. okay qaybta dambe soo physical layer ka waxa waaye this is the physical and media way or use the data presented as electric signal
is sent from the source host to destination.